ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed طيب وصاص لا يمكن أباريه يجي كايو يسوينا نولا guuleystayaan boqolaal shacab ah oo buux dhaafiyay Konis Stadium dhoola tuska geesiyaasha dalka diyaar garowga shaqaalaha wasaaradaha dawladda oo aan soo kala harin iyo kaalinta bahda fanka ayaa bedelay jawiga garoonka oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday golayaasha dawladda waa munaasabad lagu weyneynayay kooda Luulyo madax banaanidii gobolada koonfureed ee dalka iyo israaci koonfur iyo waqooyi taasoo ay soo xaadireen bulshada qaybaheeda kala duwan madaxweyne Farmaajo oo halkaas kula hadlay dadweynaha ayaa sheegay in ilaalinta sharafta iyo dhulka Soomaaliyeed ay tahay waajib saaran qof waliba oo muwaadin ah wadaniyadu macnaheedu waxay tahay in ay ilaaliso sharafka dalkaaga sharafka dadkaaga in ay ilaaliso oo ay ku dhibto wax kasta oo foolxumo ah oo qof Soomaali ah laga sheegayo qof kasta waxa waajib ku ah oo Soomaali ah inuu shaqeeyo sharafka umadiisa inuu shaqeeyo qof walba oo Soomaali waxa waajib ku ah inuu u dhinto difaaca dalkiisa uusan ogolaanin hadday tahay bad iyo hadday tahay berri inuusan cadow u ogolaanin cid kastana u ogolaanin hadday noqoto 1 mitir hadday noqoto kaas weeye wadaniga marka wadaniga aan doonayno oo aan maanta intaasoo qof isugu soo saarnay oo quruxda badan waxa weeye inaan carruurteenna birri u diyaarinno intaan iyo in ka badan inaan u diyaarinno carruurteenna inaan u diyaarinno taariikhdooda carruurteenna inaan u diyaarinno inay lahaayeen aabbayaal iyo awoowayaal u soo halgamay oo dhiiggooda u soo daadiyey dalkan isku haynteeda iyo midnimadeeda sidaas darteed waxa aan samaynayno waa waxa aan ka shaqaynayno waxa soo socda waxay ku yeelan karto jiilka Soomaaliyeed ee aan dhalnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in xoojinta dawlad wanaag ku dhisan dimuqraadiyad ay tahay hadafka dawladda dawlad wanaag aan rabnay inaan xoojino waa dawlad wanaag ku dhisan dimuqraadiyad darajadu waa meerto maalin walba qof baa jooga maanta anaa joogay shalay dad waalahana joogay biri dad kale joogi doona waa inaan difaacno waa inaan dooranno madaxweynuhu waa astaan qaran dalkuna waa astaan qaran yaan la kala saarin madaxweyne qoys ah ma jiro madaxweynuhu markuu dhaartay oo doortay ummaddu wuxuu u dhaartay inuu dhaxeeyo ummaddu inuu cadaalad falayo inuu ka fogaanayo wax kasta oo ummadda kala qaybiya madaxweynihiinu waa kaas dawladdiinuna waa taas dawlad ha ka raadin qabiil dawlad ha ka raadin qabyaalad dawlad ha ka raadin kala qaybsanaan dawlad waa tan midaysa ummaddeeda waa dan ummaddeeda isu keenta waa dawlad tan difaacda dadkeeda weeye madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday sida ay dawladdu ula dagaalantay musuqmaasuqa waxaana uu si gaar ah ula dardaarmay shaqaalaha dawladda waa ka hadalnay musuqmaasuqa waa cudurka dawlad burburiya waa wixiina burburiyey waa waxaan la istaagi weynay musuqmaasuq waa la dagaalaynaa waqtina ugu qaadanaysaa waxaan u sheegaynaa inay iska ilaaliyaan intaynan ceebeenin inay iska ilaaliyaan intaan la xirin musuqmaasuq waa wax foolxun waa wax aadan lahayn oo aad qaadatay waa waxaad ka qaadatay qof walaalkaa ah oo uu qaadan lahaa waxaan idinku boorinayaa shaqooyinkiina inaad ka adkaataan shaqo wanaagsan aad ummadda u fulisaan dhinaca kale aruuridii hore madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ubax dhigay taalada daljirka daahsoon ubaxaas oo lagu muujinayay abaalka dadka Soomaaliyeed ay u hayaan cid waliba oo door ku lahayd midnimada iyo madax banaanida dalkeena Muxyidiin Macalin Cabdulle warbaahinta qaranka Konis Stadium